Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ma'ali Umar YouTube channel. Kusoo dhawaada waxaan dhagaysan doonaa muxaadaro ku saabsan ku sugnaanshaha diinta alle. Sheekh Maxamed Gaboobe Cabdi. Kusoo dhawaada. allihii nagu kulansiiyey baydkiisa innagoo caawa rabna in aan kala faa'iidaysanno oo aan isu sheegno waxana anfacaya fil macaashi wa fil macaad waxa ugu muhiimsan waa adduun iyo aakhiro rabbana aatina fi dunya xasana wa fil aakhirati xasana wa qina cadaaban naar in adduunkaadana uu kuu hagaago oo inta aad joogto rabbi subxaanahu wa tacaala aad ku xirnaato iyo in markii aad dhimato oo geerida la gaaro sida aayadda qur-aanka hadda ka muuqata walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun adigoo rabbi ku xirnaa oo muslim ahaa in ay geerida iyo yaqiinta kuu timaado wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin awalan wa qabla kulli shay naftayda muqasiradda ee gaabinaysa iyo naftiinna waxaan u dardaarmahayaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala allihiina samaystay bacda alcadam annagoo aanan jirin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cadam naga keenay oo uu rabbi subxaanahu wa tacaala dhabarka aabbahenna geliyey marxalad ayay ahayd marxaladii labaadna riximka hooyada ayaa lagu gudbiyey marxaladii saddexaadna adduunkan ayaa lagu keenay dhowr marxaloo kalena waa kuu dhiman yihiin oo tii qabriga iyo tii qiyaamaha bannaankeeda iyo tii janno ama naar lixdaas marxalo ayaad maraysaa marka qof kasta waxaa la gudboon inuu ka shaqeeyo kuna fikero mar walbana uu wakhti geliyo see u badbaadiyaan naftaan aan wado cabbaas binu cabdilmuطalib radia allaahu canhu oo nebiga adeerkiisa ahaa baa nebiga maalin u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi rasuul allow aniga waxaan rabaa inaad madax iga dhigto markaa mas-uuliyaadkii baa ballaartay suubanaha sala allahu calayhi wasalam meel walba hadda dowladda islaamka ayaa gaaraysa futuuxaad baa imaanaya dad baa sadaqaadka iyo sakooyinka soo aruurinaya dad baa magaalooyinka walaayaadka loo dhiibaya cabbaas wixii buu arkay waa nin odaya muddana haddee zacaamadii reer cabdilmuطalib soo hayay siirada saa ku taqaanaan marka waxaa gashay waa bini aadan madaxnimo jacaylna waa iska jirtaa inkastoo ay wax laga ducaysta ay tahay laakiin haddana waxaa la yidhi saalixiinta waxa u dambeeya oo ka dhammaaday ka mid tahay xubu ri'aasa marka ri'aasa weydiistay xalaalna ah laakiin nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam suubanaha wuxuu ku yidhi yaa cabbaasu yaa camma rasuulillaah nafsun tunjiiha khayrun min imaaratin laa tuxsiiha cabbaasow nebiga adeerkiisow waa nebi maxamed adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam waa la muujinhayaa weliba naf aad badbaadisaa kaaga fiican madaxnimo aadan berrito aadan koobi karin oodan xaqeeda ka soo bixi karin su'aasheedana aadan ka jawaabi karin aadan iska ilaalin karin tabiicaadkeeda iyo waxa ka imaanaya waa hadal weyn weeyaan marka nin walba annaga naga mid ah inuu meel ku qarto see naftaa u badbaadiyaa oo maalinka geeridii igu soo xaadirayso anigoo rabbi raalli iga yahay aan ula kulmaa maxaa yeelay walaalayaal waa nasiib darro aad nasiib darro u ah inaad nafta lagaa qabto adigoo rabbi kuu caraysanaya jalla jalaaluhu maxaa yeelay cid kaaga dambayso rabbi subxaanahu wa tacaala kaaga gargaaraysa ma jirto haddaba fursaddaana la siiyey oo weliba imtixaanka ah waa wakhti yar oo aan adduunka joogayno haddana aan la garanayn intuu yahay xataa haddii wixii aad garanayso waxaa laga yaabi lahaa inaad markuu soo dhowdahay geerida aad xisaabtanto laakiin garan maysid waxaa kaloo lagugu imtixaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iska kaa qariyey laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa allatiifu alkhabiir oo haddii aad arkayso maadan caasin lahayn marka laakiin waxaa lagu iimaankaada ha soo gaaro an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak martabatu alixsaan ha soo gaaro oo rabbi u caabud sida adigoo arkaayo oo u jeeda waa imtixaan midda labaad dembigii baad gashay waa laguu kaadiyey oo hore lagaama qabanin waqti baa lagu siiyey
weliba nicmaa lagugu daray adoo dembaabaya ayaa lagu dhaqaaleeyey maalin walba ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqdiisii nicmadiisii khayrkiisii baa kuu soo degaaya cadceeddaas ayaa kuu soo baxaysa hawadaas iyo oksijiintaas aadan ka maarmin baa lagu siiyey waxaa weeyaan meel fiican baad xale seexatay saaka quraac fiican baad cuntay man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafaa fii jasadihi cindahu quutu yowmihi kaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam haddaad nabadgelyo haysato caafimaad aad haysato waxa cunto aad haysato icaabud baa lagu yidhi noloshaadii kale adduunkana wado markaasaad rabbi caasinaysaa asagiina waa ku dhaqaalaynahayaa ma qabataa rabbi jalla jalaaluhu marka qofku waa inuu xishoodo oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka xishoodo oo uu iska ilaaliyo rabbi subxaanahu wa tacaala mukhaalafadiisa iyo waxaa weeyaan waxaa la wariyey hadda ka hore nin saalixiinta ka mid ahaa oo iska lugaynaya iska socdo ayaa wuxuu soo maray mid khamra inta ka dhargay xalay meel webi qarkiisa ah jiifa oo wax uu ogyahay aysan jirin oo sakhraan ah wuu fiiriyey markaasaa wuxuu arkay ninkan waxaa ku soo socda abeeso inay cuntay rabta abeesadii xoogaa kadib ayaa waxaa soo baxay webigii ka soo baxay malaay ama kalluun saa u taqaanid samak dusha ku sida caqrab ama se dibqallooc ama hangarale saa u taqaanid waxaa loo sakhiray webiga dhinaciisa kale ama daantiisa kale laga keenay dibqallooc si uu u dilo abeesadaa ninka intaysan qaniinin si u soo waday webigu ka soo bixi waa ka degey kalluunku wuxuu isaga noqday webigiis waa soo orday dibqalloocii wuxuu dilay uu qaniinay warubbamaa tamuutu alafaaci bisumuumi alcaqaaribi baa lihi soomaa abeesada inay u dhimataa laga yaabaa sunta dibqallooca laa taxqiranna kayda asagiiri farubbamaa tamuutu alafaaci bisumuumi alcaqaaribi markaasuu haraanti ku kiciyey abeesada waa dhimatay hangaralini waa iska tegey ninkii sheekh ah ninkuu haraanti ku kiciyey war ka kac meesha adigana ilaahay baad caasinaysaa khamraad ka dharagtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala saasuu kuu dhaqaalaynaya makhluuqaadkiisaa lagu sakhiray makhluuqaadka iyaga wax dhibi jiray oo hangarallihii oo kale ayaa waxaa la soo saaray samagaas waxaa kaloo walaalayaal imtixaan ah dembiga intaad gelayso haddii maalan hadda tusaale ahaan markii aad dembi gashaba hore lagaa qabanayo malaa'igta sidii booliska hortiisa adoo dembi ku sameey hore ay kaa qabanayso ka war waa un la qorayaa bas weliba waxaa la leeyahay u suga inuu toobad keena laga yaabaa u suga yacni allah waa xaliim jalla jalaaluhu ilaahi subxaanahu wa tacaala waa xaliim waxaasoo dhanna wakhtiguu u sameeyey wakhtigii haddii la gaaro hadhow calaacal wax ma taraayo marka wakhti baa lagu siiyey ajal musamman waa laguu kaadiyey marka ka hore ayaa waxaa nala gudboon in aan waddada xaqa ah ku toosnaanno aan isku dayno mar walba in aan toosnaanta ku dadaalno haddii rabbi subxaanahu wa tacaala qalbigeenna uu ka ogaado maxabbatu lkhayr hadduu ka ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa noo kaalmaynayo ilahay wuu noo kaalmaynaya walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum ilaahay wuxuu leeyahay gaalada oo islaamka qaadan weysay haddii qalbigooda uu ilaahay khayr ka ogaan lahaa diintuu garansiin lahaa waa maqashiin lahaa maqal ay wax ku qaataan laakiin qalbigooda waxaa laga waayey daacadnimo iyo khayr jacayl marka haddii xumaan qalbiga deggan tahay oo aad weli ashar uu qalbigaada uu ku jiro iraadatulkhayr ay ku jirin ilaahay waa ku khudlaaminaya ilaahay subxaana wa tacaala garabkaaduu ka baxaya marka waa in aan ilaahay in badan barinno in aan toosnaan helno maxaa yeelay dadkii annagana dhalay ama kuwii sii dhalay ama ciddaad ku abtirsanayso dhan fiiri waa dad dhintay adigana berri baa dhimanaysaa walaa shakka laakiin see u dhiman doontaa talow see u dhiman doontaa wama annaasu ilaa haalikun wabnu haalikin waduu nasabin fi lhaalikiina cariiqu dadku waa nin dhintay inankiisa iyo nin dhintay kuwa maaragtaaye aad ugu abtirsanaayo cariiq waa abtirkiisa haddaba toosnaanshadaas athabaat xata almamaat maaragtay laga dhigay mawduuca yacni markaa toosnaanta aad waddo haddii qofka inta badan uu shay yaraantiisa ilaa uu wado wakhti dheer u wado waxaa laga yaabaa ilaahay subxana wa tacala inuu ku oofsado man shaba calaa shayin shaaba calayh in marka dambena lagugu oofsado haddii aad xumaan wadi jirto xumaantay u badantahay inaad ku tegto laakiin waa haaliban sidaas weyn laakiin naadiran waxaa dhacaysa fayasbiqu calayhi alkitaab sida xadiiskii aad garanaysaan nin wanaag samaynahayay markii uu maaragtay wax yar u jiro xataa maa yakuuna baynahu ilaa diraac fayasbiqu calayhi alkitaab
taas waa naadir laakiin inta badan waxaa weeyaan haddaad adiga toosnaanta ku dadaasho ilaahay uu ku toosinaya laakiin haddaad xumaanta ku dadaasho hadda xumaantaas unbaa lagu daayinhayaa arrinta waa saa iska dhigto ilaahna subxaanahu wa tacaala bayaan ayuu ku siiyey waddadii waa kuu caddeeyey haddaba waddadan aan leenahay ha la haysto ha lagu sugnaado oo habaat ha lagu sugnaado aan leenahay waa in la tacriifiyo waa waddo sidee li'anna qofka asagoo wax qaldan haysta hadduu ku dheganaado aakhiro markuu yimaadana waxa weeyaan la yidhaahdo waxba meesha kuma yaallaan wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun asagoo isku haysta inuu fiican yahay haddana waxaa weeyaan caamilatun naasiba inuu noqdaa suuragala haddaba waddadan aan rabno in aan ku dheganaanno xata almamaat waxaa weeyaan midda aan maalin walba salaadda 17 jeer ragcadaha markii laga tiriyo salaadaha aan tukanno aan leenahay ihdina asiraata almustaqiim waddada ilaahay oo nagu sug oo nagu hag oo nagu toosi waddada mustaqiimka waddadaasoo aan tacriifinayno leenahay siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin horta waa siraatu lmustaqiimka asaga waa kelimatu laa ilaaha ila allah kelimadda tawxiidka weeyaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah kelimadaas ayada weeyaan oo ilaahay uu ku tilmaamay kelimatan طayibatan ka shajaratin طayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa waa geedka timirta ayaa lagu matalay iimaanka geedka timirta nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska ibnu cumar fii saxiixi albukhaari wuxuu ku tilmaamay mu'minka inuu la mid yahay geedkaas caleentiisa aysan dhacayn ilaahayna wuxuu yidhi waa geed xididadiisana ay sugan yihiin oo dhulka si fiican ugu jira yacni furuucdiisana ay xagga samada waxaa laga wadaa xagga sare ay jirto macna kelimad tawxiid baa lagu fasiray waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah haddaba waxaan qabsanayna waxaa weeyaan kelimatu tawxiid oo ay ka dhalanayso su'aalaha berri qabriga markii lagu dhigo inta lagu soo fariisiyo labada malak weydiinayaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka intaasaa lagu weydiinaya intaas ayaa la rabaa si fiican inaad u barato oo aad dhaqankeedana ku darto li'anna in badan oo dad ka mid ah wax waa yaqaanaan laakiin laguma dhaqmo haddaba ilaahay wuxuu rabaa jalla jalaaluhu alcilmu waalcamal in la ogaado oo lagu dhaqmo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad baranaysaa tawxiidkiisa li'anna ilaahay barasho uma baahna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isu kaaya baray awooddiisa iyo makhluuqaadkiisa iyo wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu fayaa cajaban kayfa yucsa alilaah am kayfa yajxaduhu aljaaxidu wax walba naftaada xataa ilahay wuxuu yidhi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun xataa adii haddaa isfiiriso awoodda ilahay baad iska dhex arkaysaa maxaa yeelay ayaa saan kuu sameeyey allah jalla jalaaluhu ayaa saan kuu sameeyey alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn yacnii adigaana waxaa tahay cibro ah socda waxaa la yidhi ninka liyaa fakhru raazi oo dadkii mutakalimiinta ka mid ahaa oo maalin socda oo ardaydiisa daba socdaan ayaa maamo weyn oo muslimiinta caamadoodii ka mid ah ayaa waddada isku gudubtay marka ardayda waxay rabaan si ayada sheekha u qiimaynayaan inay u qiimayso markaasaa waxay yidhaahdeen ifsaxi ariiqa lilfakhr waddada fakhri u bannee fakhru raazi markaasaa waxay tihi waman ilfakhru maba aqaanee markaasaa waxay yidhaahdeen miyaadan garanayni waa ninkan fakhri oo aqaama alfa daliilin wa daliil calaa wujuudi illah kun daliil iyo hal daliil kun iyo kow daliila wuxuu u keenay ilaahay jiritaankiisa wuu iskallifay muxuu rabaa ihbaatu allah bilcaqli ilaahay subxaanahu wa tacaala in la sugo oo dadka aayadii xadiis aan la sheegin jiritaankiisa caqli lagu keeno kun iyo kow daliilu kaadi maamadii hadal fiican bay ku jawaabtay oo kooban waxay tihi wamataa qaaba canna oo ilaahay intii kun iyo kow daliil loo raadinayo ma annaga u baahnaynba intaasoo dhanba ilaahay miyaaba naga maqan ilaahay uma baahnin kun iyo kow daliil in loogu keeno sanuriihim aayaatina fi alaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid gaalada hadda maalin walba ee cilmigan hormaray ee bini aadanka callama alinsaana maa lam yaclam waa min cilmi illah ilahay unbaa siiyey oo baray waxba ha la yaabin ilaahay wuxuu baray maalin walba gaaladii waxbay ogaanaya maalin walba icjaazulcilmiga iyo qolada ka hadasha fiiri ayagii baa ku soo islaamaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifadiisa waa inaysan shaki kaa gelin ilaahay jiritaankiisa shaki see kaaga geli karaa adduunkan oo dhan miyaa iska samaysmi kara ilaahay asoo cid samaysa aysan jirin suu ilaahay ba yidhi am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun ma wax shay la'aan baa la abuuray mise ayagaa wax abuuray waa inaad tidhaa anaa abuuray mise aad tidhaahdo
waxaan yani alla abuuray wax ka dhaxeeya mal waa iska samaysmeen ma jiro waxaa la yidhi nin mulxida mulxidiinta waa yaraayeen ilaahay fadligiis wax mulxida oo yidhaah ilaahay ma jiro adduunku waa ku yaraayeen lianna fidrada ayaa ilaahay rumaysan jiritaankiisa waxaa la yidhi nin mulxida ayaa nin shiiqa la dooday wuxuu yidhi munaadaro noo qabo aan ka wada hadalno aniga waxaan aaminsanahay inuusan jirin tacaala allahu camaa yaquulu الظaalimuuna culuwan kabiiran sheekhayna wuxuu yidhi waaya anna waan doodda waan u imaanahay maalin baa la ballamay magaala lagu ballamay waxaa u dhexeeya webi ninkii mulxidka markii waa is soo taagay sheekhi baa la waayey cabbaar sheekhi baa maqnaaday markii sheekhi uu imaan waayey uu soo daahaa waxaa la yidhi ninkii baa marka aad taxaddi u sameeyey oo caraytama yidhi waa u jeeddaan waxba meesha kuma hayo hadduu cilmi hayo uu imaan lahaa anaa asagoo sidii la meesha haysta ayaa shiiqi yimid shiiqiyaa wuxuu yidhi ii cudurdaar waxaan ku soo daahay ma taqaanaa maya waxaan ku soo daahay buu yidhi doontii baan waay webiga isoo tallaabin lahay xoogaa markaan iska fadhiyey ayaa geedihii baa jajabay alwaax baa ka samaysantay alwaaxdii baa isku xirxirantay masaamiir baa soo oroday masaamiirtii baa dhex galgashay doon baa ii samaysantay doontii baan soo fulay ninkii mulxidka wuxuu yidhi waxaan axmaqa afiiriya ma doon baa geedaa isku soo orday iska samays maxaa yidhi waxaa sheegaysa seen kuula dooda caaqil matiid buu ku yidhi wuxuu yidhi hal doona ayaad diidan tahay inay iska samaysanto adigana waxaad aaminsan tahay adduunkan koonkan oo dhan oo saan u habaysan inuu iska samaysmay oo dabeecadhaan isaga samaysmay meeshaasaa looga garhelay marka mulxidka yacni waxaa weeyaan intaasuu ku egyahay oo ilaahay wujuudkiisa shaki nagama gelaayo laakiin meesha aan u dhimanayno walaalayaal ma taqaanaa waxaa weeyaan wamaa qadaru llaha xaqa qadrih وما قدر الله حق قدره في سورة الأنعام وفي سورة الزمر إلهي وينينتي يا حشمينتي وحق لها ميسن حشمين الله لا جل جلاله أنه أقبان دردرينا أمرك إلهي سبحانه وتعالى أنه أقبان نهيك دردرينا أنه أقبان واجباتك كقابنينا أنه أقبح والبايان سميننا سبحان الله marka taasa la rabaa inaad iska daawaysid dariiqa hadaa rabto inaad ku toosnaato dariiqan siraadul mustaqiimka oo aad qabsanayso حق إلهي سبحانه وتعالى توحيد كيسي لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن أتكمل كنتي حق النبي عليه الصلاة والسلام أسجنا وحلقة ربا اتباعيسي النبي عليه الصلاة والسلام إنه راعد وآذن ودوين كلمرين وآتراه وألا يعبد الله إلا بما شرع ومن رغب عن سنتي فليس مني أصنع وحكار ربا صوبنا سنتي كدقا كذا دين توحيكار ربتا إنه diin waaba dhaqan sideeda inaad dhaqan ka dhigatid laakiin aadan oran annaga dhaqankayga waxaan u dhigaa diintana waa sidaan aadan kala saarin waa inuu diinta kuu noqoto dhaqanka waxaad ka tegayso waxaad samaynayso saa dadka ula mucaamalaysa aw man kaana maytan fa ahyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas waa in nuur ay qalbigaada galo nuur diineed waa inaad hesho oo aad dadka ku dhex qaado oo aad taqaanid xataa sida dadka aad ula mucaamalayso waxaad iibsanayso waxaad maaragtay aad soo qaadanayso qofka saa ula hadlayso waxaasoo dhan waa inaad diinta aad ka qaadato oo aad noqoto qur'aan dhulka ku socdo sidii ummuna caaisha ay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecadiisii markii la weydiiyey waxay tiri qur'aanka ma akhrisid miya kaana khuluquhu alqur'aan ilaahay wuxuu yidhi innaka lacalaa khuluqin cadiim khuluqiisana nabiga qur'aanka ayuu ahaa oo qur'aanka ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaqmi jiray marka arrintaas ayada waa muhiim diinka meesha ayadana aad eersan karto waxaa oo dhibka uu ka imaanaya waxaa weeyaan camalka marka laga yimaado istikhfaaf bidiin dad baa diinta iyo ahalkeeda fududaysta waana lagu gaaloobahay arrintaas shaygan mar diin hadduu yahay oo xadiis saxiixa uu sheegay ama aayad qur'aan ah oo daliil u ah loo hayo waxaan waa in aad iyo aad maaragtay iskaga ilaaliso lianna iimaankaada ku xiran ilaalinteeda qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum gaalnimaa lagu tilmaamay xataa ahludiinka haddaad ku jeesjeesayso diintay wadaan aad ku necab tahay oo ay sunno ay muujiyeen aad ku caayayso waxaa weeyaan istihzaa bidiin bay noqonaysaa dadkii diintooda ciyaarta ka dhigtay aladiina ittakhaduu diinahum lahwan wa laciban ayaad baabkoodii gelaysaa marka diinkana waa inaad aad isaga ilaalisid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hanuunka markuu saa kuu tuso oo aad aragto waxaa la rabaa in aad qalbigaada adiga iilin ilaa adiga is ilahay mararka qaar ilahay wuxuu leeyahay falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum xaqi waa la tusay laakiin ayaga qalbigooda leexday qalbigoodiyaa wax kala raacay markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu arkay inay khayrka u jeedin ayuu ka jeediyey leeyahay allah subxaanahu wa tacaala
في سورة البقرة سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله مرك الدليل اللي سي وحى العدل السي إله وحله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت نعمة إله إيجا بدلك مر إله يدوك هنونية وحى الله يست وحى وين بهايستا حدي طريق صح هذا هيسي مرك وحال ربا إن الطريق قبسته وخذوا ما آتيناكم بقوة سكرت لي الدين توها يستال ربا أن ما يعكجرين مركز إله سبحانه وتعالى ومارتاي هدايتي سي معونتي سي وتأييد كي سبب هليسا لكن هدي أديه بقى مدبدبين أو مارت اللي حنسه هذا فلما زاغوا أزاغ الله وكقول عيسى إلهي وحو أماني دتك الدين ككل جنون لحنين إلهي كدنتان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي وحلي مؤمنين تركبا كمدا رجال با كمدا مؤمنين وجمع مذكر سالم عيادنا رجال ليلي رجال با كمدا يعني ذكور توضن لمرة الرجال با جرتويا رجال شاس إلهي وحقوق الماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه مسؤولية أن دينتي حنبارين هي التكليف كأمر كي نهي قادين إلهي وأغرهم شيئين وكسر ضلالهم بيد الله جل جلاله صدقوا ما عاهدوا الله عليه ذكي وحيوقع بسنين من دينتي كل دينتي بلنت إلهي يسوع فينا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر كل سوغا يعني كمده انت النوشه هي او سوغي سنه لغاغا امن اها ان تفدنوده فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اي عبد الله بن مسعود قف نول او بلااي انه فدنوبه بلاايوبه او مارتاي او باديوبه لوغا اميه ما جرت اي امام احمد بن حنبل ايا وحال وريا markii ay nafta ka bixis ayaa waxa la yiri imaamka xogaa uu mir daboolmay imaam ahmed ibn hanbal markaas hadana markuu mir daboolma wuxuu lahaa la ba'du ma yawli markaas waxa lagu yiri markuu soo miirsaday imaam Usaan Allahayda maxaa jiray markaas wuxuu yiri ibliis baa ii soo istaagay guriga korkiisa markaas wuxuu leeyahay inta farta qaniinay futani ya ahmed oo waad iga fakatay inaan ku fidnayaan waad iga fakatay anna waxaan yiri ma yawli intiba aan noolahay wali kaama fakanin ilaa aan ka dhinto marka ilaa aad dhimato malaa'ikta ku bishaarayso oo malaa'iktu ku soo degto innal ladina qaalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaa'ika oo malaa'ikatu rahmaan aragtin waa ina cabsatid oo cabsiga ku jirto ibliisna wuxuu rabaa asagu inaad naar la gasho wali waxa laga yaabaa inaad u fakarayso ibliis inaan dambaabo rabaa macsiyada waxa ugu muhiimsan inaad gaalowdo horta ogow lianna hadii macsiyi dambi aad ku dhimato aakhirkaada ahlu tawxiid hadaa tahay jannada ku dambaysa ama shafaaca ku soo baxa ama fadli ilaahay ku soo bax ama waqtigaada ku qaada lagu talagalay laga soo gooyo waad soo baxaysa soo saas ma aha aqeeyada saxda ni ahlu tawxiid naar kuma waaray waqtiga ku qaadataba laakiin asaga wuxuu rabaa qof aan ka soo tagaynin naartu degan yahay inma yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'id waxa laga yaabaa inaad baciidsato tiraani say u gaaloobay islaaniman ku dhashay hadda horta waa aragteen kristaamayn iyo balaayaba socoto oo dad Soomaaliya oo hunguri qaaday kulay u maleeyay inay diin ku qanceen oo kristaan baan nahay waxaas dhahay oo hawl waaweyn way taas wax aadan garanayn baa lagu gaaloobaa waliba markaad dhimanayso ayuu ku soo weeraraya oo nafta markay ka dixirto wuxuu jecel yahay wax yar oo i'tiraad ah ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya oo mucaarad oo tiraahdo maxaa hadda la ii dilaya kaliya hada tiraahdo يعني انت سو عيال بان كتغايا maxaa hada la ii dilay oo la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun wax yar oo shaki ah hadii marka dhimanayso waliba xaalad adag aad ku jirtaa oo qofka aadka u xanuunsanayso oo cudurdaar badan uu leeyahay laakiin markaan waa ka sii daran tahay sakaraad baaba ku hayaba marka hadii ilaahay mucaarada ka war ma halis weeyaan ama aad ku dhimataba oo kula fiirsada maalinka aad dambiga waday موبايلka furtay balaaya daawanis hadii maalinkaas aad yaani waxa weeyaan geerida ay kugu xaadirtay buu asagana ma aragtay dambi ku galiyay wuxuu rabaa inaan ma aragtay kufri macaasi balaaya wanaagsan waxay dhihi jireen in dakhalta al-qabra wa ma'aka al-islam fa abshir hadaad qabri la gashay islaamnimada bishaarayso ibxaa ila dad badan oo qabriga galay ayaa la arkay markii qabriga nin baa qabriyada qodi jiray oo nabaash aha kitaab waxa jira tawaabin leeyahay الحافظ عبد الغني المقدسي inuu iska leeyahay rajayna kitaabka tawaabin dadkii toobadkeenu ka sheekay sheekha hore caalimka marka nin kamid oo dadkii qabuuraha qodi jiray la wareystay dadkii ka waran qabuuraha aad ku aragtay oo kafanta yani kafantu la baxaaso markii ay cusub tahay yani bini aadamka markii uu qalbigiisa qallalo waa dib
wuxuu yidhi dad badan qiblada laga jeediyaan arkay dad badan oo qabuuraha ku jira oo markii hore qiblada loo sii jeediyay oo laga sii jeediyaan arkay buu leeyahay markaas sheekha iska calacalahaya buu leeyahay aktaruhum xuwila can ilqibla uu ku celcelinaya yacni badankood qibladii baa laga leexiyey badankood marka walaalayaal masalada ma sahlana mas'alo sahlan ma aha waa mas'alo mustaqbalka nagii ah mustaqbal kalena ma jiro allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira yacni adduunya maxay la tahayba adduunya waxba ma aha haddii aad maalmo joogtana waxaa imaanaysaba oo lagu sii daayo geeri hadday ku dayso gabow aan ku daynayn waa meeshaa kooban ee lagu dhibban yahay xudayfa binulyamaan ayaa wuxuu waaninahaya oo la dardaarmahaya haddii maanta shay macruuf kula berri munkar ka dhigto maanta munkarkii macruuf aad saan u midabayso maanta masaa'idka wadaad baa noogu egtay berri haddaad qolo kale oo iska qasanaysa waad la qasanaysaa yacni ma sugnid waxaa la rabaa marka inaad sugnaasho lagaa helo oo aad talawunka wuxuu yidhi iyaaka waatalawuna fii diin illah fa ina diin allahi waaxid xataa yacni waxa wax badana soo galaayo tabaadka marka hadda annaga waxaan xoogga saaraynaa istiqaamada shakhsiga qofka shakhsi ahaan inuu toosnaado waa laga maarmaan waxaa kugu xiriira oo caqabaad ah qalbigan waa gadgadoomaya suu xadiiska sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska axmed yacni qalbigu wuxuu ka gadgadoon badan yahay dhari ama digsi dabka la saaray sida markuu qalayaanka gaaro oo uu wadiitinahayo biyihii ay maarata rogmanahayaan ama wixii ka rahayay saas ka daran qalbiga u gadgadoomaya marba waxbuu jamanaa marba waxbuu rabaa yacni naftaba kugu xiriirta waa dhib naftii ayadana waa kugu jirtaa ina nafsa la amaaratun bisuu shayddaanna waa kula jooga waxaan oo dhan waa cadow ilaahay oo waxa weeye adna cadow kugu ah naftaadii waa cadowgaada shayddaankii waa cadowgaadii waxa wax badan baa imaam axmed baa waxaa lihi hadda ka hore maruudii ayaa u soo galay oo ardaygiisa wuxuu ku yidhi kayfa asbaxta imaam axmedow see ku waabarist wuxuu yidhi kayfa asbaxa man rabbuhu yuطaalibuhu biاlfaraa'id wanabiyuhu yuطaalibuhu biadaa'i الsunna wاlmalakaani yuطaalibaanihi bitasxiixi اlcamal wuxuu yidhi wanafsuhu tuطaalibuhu bihawaaha waibliisu yuطaalibuhu biاlfaxshaa wamalaku اlmowti yuطaalibuhu biqabdi ruuxi waciyaaluhu yuطaalibuunahu binafaqatihi nin intaasoo 7 dalab buu sheegay 7 arrin ay haysato waa berigiisa yahay rabbi wuxuu ka rabaa faradka inuu toosiyo waajibaadka nebiga wuxuu ka rabaa sunnadii inuu hagaajiyo labadan malaga garbaha kaa saaran waa dad kula jooga wax kaa qoray camalka inaad iska hagaajisay iga rabaan camalka inaad hagaajiyay rabaan waxaa weeye naftayda hawadayday rabtaa iyo dooqeydii iyo balwadeedii waxaad in iska samayso bal yuriidu linsaanu liyafjura amaama inuu iska sameeyo wax hortiisa ahaado shaydaan asaga faxsha iyo dembi faxshaa iyo balaayo ila rabaa malakulmowdna waa daba taagay nafti inuu iga qaado rabaabi ciyaalkiina waxaas uma muuqdaana biilkiiba iga rabaan buri ayagana oo saan ku keenaba xoolo keen baa lileeyahay marka yacni ilaahay subxana wa tacala intana abuuray adduunkaanna keenay meel iska fadfadhiya oo malaa'ig camal noqda nama dhihin intaasoo balaayo kugu hareeraysan ayaa haddana waxaa lagu yidhi qabso diinka qabso marka daarta inaan fahanno aan joogno walaalayaal inay daarulibtilaa iyo daarulimtixaan ay tahay wey waxyaalaha lagu lumo waxaa ka mid ah shubahaadka diintaada lagaa gelinaayo oo caqiidadaada lagu furaayo maanta waa u jeedaan mar gaalaysiin baa socoto mar caqiidadii saxda ahlu sunna wal jamaa shaki laga gelinaya oo shiica iyo balaaye asxaabtii nabiga caayaysa ayaa imaanaysa marba shubhaad baa lagu furaya shubhaadkaas waa inuu qofka iimaan jaazim iyo yaqiin iyo cilmiga uga bixi kara cilmi sharci oo sax inuu barto iyo yaqiintiisa inuu mar qalbigiisa la dagaalamo oo qalbigiisa yaqiinta uu taas uga bixi kara waxa ugu daran haddaa shubhaadka ka soo gudubtid shahawaadka waa waxa nafta jecesha shahwat uljaah dadka qaar waxay jecel inay muuqdaan inay madax noqdaan madax markaa noqotana hadda imtixaanaad badan baa imaanaya balaayo dhan baa imaanaysa nabigana waa ka digay calayhi salaatu wasalaam yaa cabdiraxmaan bnu samura laa tas'al ilimaara cabdiraxmaan bnu samurow madaxnimaha weydiisanin saasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad weydiisato lagugu kaalmayn maayo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmat almurdica wa bi'sat alfaatima yacni markaa madax noqoto kibir baa horta ku gelaayo mutakabir inaad noqoto waa suuragal ilaa dadku waa iskala yaro weyn tahay xoogaa xoolihii ummadda inaad cuntaa suuragala ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaah bigayri xaqin lahum falahum annaaru yowma alqiyaama rag baa xoolihii ummadda xoolihii ilaahay baa laga dhigay xoolaha dad ka dhexeeya dad baa isaga takrifalay naar bay leeyihiin ayaa leeyihi waxaa laga yaabaa sharciga ilaah inaad ka boodid oo waxaa weeyaan sharciga ilaahay waxaan ahayn aad ku dhaqantid mucarad baa waxyaalo badan baa sharaf jacaylka iyo madax jacaylka iyo waxaas ay kuu keenaysa waa inaad iska ilaalisid sidoo kale waxaa ka mid a maalkay dadka jecel yihiin nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laba dhurwaayo oo baahbaahan laba waraabo oo baahan oo ari lagu sii daayay say u baabi'iyaan
ayaa sharaf jacaylka iyo xoolo jacaylka ay dadka diintooda u baabi'inaysa lianna hadda waxaa ku yaala su'aala xagee ka keentay xagee ku bixis yacni markii aad maxaad ka soo shaqaysay ilaah waa ku weydiinaya wacan maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa maxaad ku qabatayna hadduu xataa xalaalaha ka soo qaad hadduu awalba xaaraan ood xaaraan ku qabatay waa dulumaatun bacduhaa fowqa bacd hadduu xalaal ahaa ood xaaraan u adeegsatayna ilaahay kumaadan mahad celinin casayta allaha binicamihi shukrigii baad khilaaftay sida imaam junayd bin qaasim maaragtay junayd bin maxamed abulqaasim ayaa wuxuu yidhi anoo yar oo 7 jir ah carruurta la ciyaarahayo ayaa waxaa ii yeeray abtigay sari markaasaa wuxuu igu yidhi iyo odayaal kale oo culummo oo maaragtay shukriga ka sheekaysana waxay dhahan yaa ghulaam kaale shukriga maxaa la yidhaahdaa waxaan ku idhi allaa tacsi allaha binicamihi ilaahay nicmooyinkiisaa ku caasin abtigay uu yahay wuxuu yidhi waxaan ka baqaayaa carabkaada inaa يعني هذا الكابس وكاهذا دين تاذا من عرب بس أي هذا ونغن سمين بان كبقاي يعني وحصل ولا هذا لا تدبجر أن هذا علمه وويناد حلي مراهق ولي ما كان هذا عرضان حاجة علمه ولا فسادي وحلي ويريرهم هو قال هذا كذا أيه وحليهن واتين أجر أو وح وينزل تهم مجاري وحما وأسكيرها إلى شيء لا تنسى هو أن كلا عربيهن وحليهن وشباب ومراهق وتدبجر وحكي جوابه يا الله تعسل الله بنعمه يعني وحا مميز بقفك هدون نقضه وحو مؤهل ويهي أو قابل ويهي إنه دين تحنباره وحبدا إلى حديثة سن التحمل كأيوه يربي أصحابته حديث كقاعد يجرين أما ضدك محدثين تاها لكن سن الأداء قاعد يسكوها يستقر ما أردت لقى قاعدنا حديث مستوى الحديث وآخر سن مركا إن دك جيلك سوك عايو الله شيء إن مسؤولية الدين إساران تاي إن واجباتك إلى اليان وحيالا بدن بالله باهية وحكو حريرة فتنة النساء هوينك في النضودي أيام أشتغل ثبات الدين تكار استاهي كرته هذان عشق محرمة جعيل حرام إن أتقشد أو وحا ويان شباب كانوا كبضان يدان يردا أو حين قونا يسام مركز دنبه إن عبادة كان نقطه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لأن ما أنت أن قفك جعليد بد كوفا كريسا ما أنت أن أسجع النار كأمر كيس فلنيسا هداد ويسا وأود أنت وأول شيء بعد الله هاي وأد هلالي ويسا جعل بالله أنت أيوان نقشة وأروم الله من كرا لأن أداء السيء وحن مركي هرال الربي أدركتي إن وحن باللودين أسكعلس لكن مركي هوسكي يا وسواسكي نفت على لسعتي مركز كبعدعين وين مركز كبعدع سوحنا أويسي وزادني كلفا بها أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع ضدك بدن كدوح لودي وجعلهم مركز الإيدي قبل إيديدان سيجع على هذا بالله مركز وحي قاريسا نوع عبادة اللهم لنا جعلك يوحن فنانين تبونبوننا هيان ويساك وآخرنا هيان وحاصلنا وحي الشيطان جعلك سحدا دين تمدي دنا وقفك هذا جعلاتين وتقورسن كرتقورس لم يرى للمتحابين مثل النكاح مركا تاوى جعلك محرم كاسيك هذا جعلك كلا حلاشة لبتي سدنبك وقلنا إسلام تادي إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أيجي هدي أد حرام درتو تصو شقينيسو درتو هذا واجبك وضيعيسو درتو هدي أد مارت إله سبحانه وتعالى وعاسيسو هذا وحا ويان أينا وضدي وكال لحين وفي الناء يكويهين يبلايا يكويهين عرورتي في الناء يكوون قناها يا إنما أموالكم وأولادكم فتنة نبي حوري عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة محزنة ويلك أما عنقة ولدك وعلمها وضن علمها هذا الشيء وحيكون قناها يعني فلي بيك هذا هيان والدين تعداد هالجميل هيدو حلاده كوان يان اوغتغا هيا واد بقيسا وحكويها مبخله واحد بخين لا صدقيسن لهي waxaad leedahay kuwaygaaba u baahan masaakiintan yar baan siinaya sadaqadii ka horstaagan maxzana waa ku murginayaan oo waxa weeyaan ayagii baad u naxaysaa oo maanta oo dhan waxa laga yaabaa marka inaad oga naxdo salaada subax inaad u toosiso laakiin aadan oga nixin iskuulka u toosintooda nin walba isfiir iskuulka ilmaha lama ogola inay sii jiifaan laakiin salaada subax nin weyn oo salaada amar lagu yiri oo 7 sano mar haduu dhaafayso 7 jir waxa laga yaabaa nin 10 jir 15 jir inaad tiraahdo haska yar hurda xal oo dhan soo jeeday bari imtixaanu leeyahay marka yaani waxa weeyaan in ilmihii ay saasoo kale ay ku galaan waxa soo dhan waxa wadada yaala quraanaa usoo saaxiibo xun ayaa wadada yaala kuwa qaadka ku baraayo kuwa sigaar ku baraayo kuwa internetyada balaayisa looga daawado ku baraayo kuwa beenta ku baraayo waxa jooga dad badan oo waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala jidkiisa isbaaray u taal kuwaasna waad ka calaacalaysaa qiyaamaha hadii hadda aad raacdid يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الله شليتني ذي يهوجي بقى محان هبل صاحب أغيش
ninkii maanta iska ilaaliya saaxiibka xunna berri buu dhihi doonaa in kibta la turdiin intuu fiiriyo ma aragtay asoo naarta ku jiro wallahi wadi halaagi rabtay fii suurati saafaat marka haddeer intay goorgoor tahay saaxiibka xun hanuunka ugu yeer haddii kale iska goo waa inaad goysid oo saaxiibka fiican aad raasatid ilaa diintan waxay u baahan tahay in la isla hayo ayay u baahan tahay qof keliya ma haysan karo waxyaalahan hadda adduunka ku soo kordhay oo tawaasul ijtimaaciga ah oo ay Facebook ha dhihin WhatsApp ha dhihin Twitter ha dhihin waxyaalahan lagu mashquulay ilaahay daacadiisii ayaa looga haray oo dariiqii xaqa ayay ku taagan yihiin in badan waxa la isugu soo diraayo iyo waxa la daawanayo iyo waxa يعني عالم كلا لو جرا عالم كلا أو نتلي لها لو جرا جرا دتك ما بقول جو قفهم ما أنت من مال كان كم مشغول سين هدي خير لو مشغولة حتى وحلقة يا با إن بر الوالدين لو مشغولة صلاته كلا لو مشغولة لكن شيطان كو كعدا دعيه وعدي بتكده جاي سنة أما مقطع في عم بالصادر يعني عبرة شيطان كهدي هو يعني إبليس وحاول يعني خبرات بقول له يدك بعدين توه بقول له لأنه إلى آدم بسوجه وأبهم بكسر معركة ويلدوا فيه سوساس معها إلى ما أنتم يقنا وحو يقنا نقطة ضعف هذا يقنا سما مرك هدي ومعسيك وكرواي خيرك واجبك وحكاية مشغولين يا سندي أما يعني أنا محاضرة جيس خير لكن واجبك ده يعني أنا والدك بارنما ودي كتبت يعني وأنا لقفك رأيت سيدا وحماشي على ولا ليال أو طريقة حقا أنا كسرنا ثباتك كهر استاجايو دينك ودم بقربة كجرو غربة الدين هذه هدابة ربطة إنا وضدها هيسو ذاتك وحي كليهن مايا أكثر الناس وإن تضع أكثر الناس يعني ذاتك بدن كود مرة بان هذه مثلا وحاربتا رمت إن لو رقم حفيظ با إيمان إساء وحبات كذا ما يصير ربطي رم بلغ ما يغان ماشي نيك الرون شاي وحب الله ما قبط محلوه غصبها يا أنا بيشك جناع سبات جليسة وحلو لي أدون كربو كل سنة وراني الربا حرام بقرآن حرام المية اقتصاد عالم كل سنة هذه وحاربتا كتابك إلهي ذاتك يكون رغمان وحلو لي وادم بيسا ما وحيالك لا جرى وبني آدم كل رغمان وديمقراطيات باجرتو أنت أجرتو وحيالك وحاربتا هوين كنا يسترنادان وقرنا في بيوتكن مركز حلو لي ما يهوش أصبح وكما جراني وادم بيسا هذه تحرير المرأة هوين تواب الحريبة يعني لا دونسن يعني دين عودة قاعدة غربة الدين باجرتا بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيس مركي هذا صالح نقطه توسناته وحن نقول إنسان غريب أما مركي قربة إن تكون صبرته خير باكو وجرة أو كنتن أجر كنتن سحابي أجر كودي وكل النبي كتر مامي أصحابه ويرى غريب سنة حيدهن رسول الله كنتن أيجا أهدا نك الدين تكون دجن وكالقابض على الجمر أو آخر زمان كقربة الدين تهايسته كنتن كنينو شيء اسمه كنتن أيجا وزمن كودا دتك الجوجا ما سوى كنتن سحابي وحير منكم النبي عليه الصلاة والسلام محايا لإذنك حق دد إن كو جرجاره هليسان لكن أيجا دد حق أو جرجاره ما هلا أيام بير النبي عليه الصلاة والسلام مركو حلقة ربع إن عاد أمواد أما هل سيئي هذا دتك ونكسنا فضيل من عياد دوم لأنها هي لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين يعني حق عدلها كدرين النبي محمد حال وسبرسي عليه الصلاة والسلام أيوه سناديد قريش أيوه ذاتك ما عرفتها وجهادي مدحوينتي عرب أي جوجان قريش أي مالها جوجان أيوه حلوير السهيب بلال أيوه لجوج قليها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ذاتك إلهي وجهي سربا أو صبحي يقلبك إلهي حساي وصلاته تكنايو ذاتك صالحين تعلصعوا الله جنقاد بالي مركوا إنا كسبرتي حق ذاتك سبا هيا رادان هداي رباني عبرة ماها بدناشها عبرة ماها حولها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم عبرة وحاويان انت حق أتكاك سوانتهاي تاسد قيمة كل ذاي وحيالها كهور استاغاي وحاكم ده أو وددي إنا هايستو يعني وحا كسونا تكال لحين كرا إدهاد إنو إماده بنا آدم كاحوك بدن باب الدولة باب إيمانه يسوح كاحوك بدن باب إيمانه هيو أو اندينك إلهي ربي أيضانا عذر داركم مهليست إنا أقول لي حتى وددي محايا لي أدونك وحصان مري فرعون وحد القرآن كشيكي أو أمد قميستا أو بلايا السماء فرعون با ودرنا فرعون وانيك حكومة أمدنا ولا شيء إلا الله أو أن ويل أضلنين أو يعني للدبرج أمد هذه ويل كول بلقد لو ضياشنا بنتان يعني وحوي ودمانيسا يعني أمدنا با حكومة إنه بابان أو ما أعرف بابا يكون حكومة فرعون كأسجع عذر دار كميسن هلين في بني إسرائيل مركي على علين فرعون وكسر دري أو أيوة على علين في سورة الأعراف
نبي وحيري قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وحيري وحول بفرعون هسما يصبر بالإنكار وهصون نقدين وحيدهن أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا كرويان وحيدهن نبي موسى انت نو إيماننا وانا لدي بجري أظن نبي أهين انت لم دلن حتى ليبك ونقصر هذا نو تمد أو النبي تهي أو نكون راعني أو رجاك قدني إن عندك كبح دونا أو النبي هلني أو إلهي نقول ما أن كحرنا يسمدي ونقول يسنين النبي هيسنا ولي وحنا الله هلا صبر فرعون واكن سواتها كرسي يسوق فديا هلاقي ونقوضا سؤال وحاويان أدق وين محوك جوابي قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون marka waxa weeyaan ama baaqiga xad gudbo ama xad gudbin adiga wadada hayso laakiin yaqiin in adiga cimrigaada ha gaaran yuusan gaarin xaqa waa mansuur الحق منصور وممتحن فلا يعني حق مر والبا ومد منصورة أو لو قرقانة لكن امتحان بمرها يعني أهل حقنا دي حق مركل ولاية هي حق ضد ولاية حق مال كل يسكتها عن مجرم مركب متمثل في أناس ويا مركب أنت سيدة ومهم سيدو كلا النبي قلنا شيء عليه الصلاة والسلام إن آخر الزمان وصابح دونه ننكدر فرعون والنبي يقول شر غائب ينتظر مد مقن أو لسجوا مد كأشر بدنوي واكي والدجال أو صلاة والبليري هلا ما قال إلهي ومن فتنة المسيح الدجال سو ماذا هذه صلاة ماذا هذه النبي يقول دجال وح الدون إماده أشر بدن دجال با أشر بدن دجال مركو إماده النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا نمحو نودر دم يا عباد الله فاثبتوا الدومك إلى يوم سجنادا يعني أمام الدجال أيا سجنانيسا وسائلنا والوسي سورة الكهف سجى آخر يعني والوه بينها يا لكن قفك الربين والسجنادا وعادي سجناشة وسائل كقاعدة لكن عذر دار ملهي دجال محسمين هيا أنت ضد في النهاية سدح قضاء أقوي قفك إن حق له استعمال أو إكراه له سماي أو اللي هذا كبح دينتي أو حق له استعمال وامد أو بهذه قوة إن حوالي سندررت لسي ترغيب أو حقا الله دادي سوق هذا كريستان بأن هاي لوكل كل العقم بيقاته أنا كشكين ماي والعلم عند الله لأن الدين اللي وقع عن ناس اسمه الوحي جوج يجي بقى كنيسة هذه كتبي وحي هيست وواحد محرف ولا عياري وإن حول الوصية أما يعني وحن الدنيا حول كلمة وحي الدنيا ما ضحني ما ده هاتو هوين هذا وحن الوصية العقل الوصية ترغيب هي إن الشبهة الوفرة أو واحد وذكري بعدين أنت اللي قلت ضوضة شكل جاجلي أنت سأقول مهم سمح لك كله مهم أنت واوتانك دجال أنت واوتا حق واوتا ووحى ويان ده قفك ديده ودلها يا ولي بوحوة النار وح جنة نار تعالوا